waxay leeyihiin wuxuu leeyahay saa'ilkeenu quraanka wuxuu sheegaa dhulku inuu fidsan yahay qolyahan wuxuu ahay falag culumta falaga waxay sheegaan inuu dhulku wareegsan yahay ama kubad yahay marka la quraanku wuxuu sheegaa dhulku inuu fadhiyo iyaguna waxay leeyihiin dhulku waa socdaa marka maxaa say isu waafaqaysa si kooban ayaan uga rajaynaa insha Allah taala sheekh inuu uga jawaabo jazakallahu khayr بسم الله dhulku waa fidsan yahay waana kurawi labadaba way uu fidsan yahay dawaa idinka arka waa like a ball waliba waxay yidhaahdaan waa sida beedkoo kale inuu sidaa yahay waa masale iska fudud waayo dayuuradda maanta galbeedka u duusha barigay kaaga imanaysaa hadaynu xaggaa u duullo barigaynu ka soo geli karnaa waana masale mushaahada hadda yacni maaha masalo u baahan adiladii cilmiga ahayd ee la baari jiray caynka waa masale mushaahada yani waxa la isweydiinayey dayax gacmeedkii la saarayay nimankii muslimiinta ahaa culamada muslimiinta la isugu yeedhay markaa niman muslimiina raacaya 24 saacadood 16 jeer bay dhulka ku soo wareegayaan markaasay u tukanayaan bay wadaadadu ka fatwoonayeen saacad iyo badh kasta habeen iyo maalin buu dhammaynaya saacad iyo badh kasta habeen iyo maalin buu dhammaynaya markaa saacad iyo badhka ama 5 salaadood baa la tukanayaa mise 24 saacadood baa la sugayaa mar la tukanayaa waayo ninkana 16 jeer dhulka ku soo wareegayaa waxaan uga dan leeyahay markaa dee waa masale mushaahada waana waxyaabahay culamada muslimiintii waagii hore taqriiriyeen waxaan filayaa qarni السابع أو السادس عند العلماء المسلمين waxay ahayd masaa'ilka caamka aan murankuba ka jirin ee la wada rumaysan yahay waa markaynu kuraweynimada ka hadalno waa jiraan dooda yaroo imika lagu soo qoro website-yada iyo meelaha kan oo rag dan leh ay waxyaabo yar sawiraan oo golob yar oo cadceed yar halkan marayso oo saan u socoto laakiin waxay u badan tahay inaan saxahay taasi waa masalada koowaad talabaad maxay ahayd sheekh ilaawi socodka iyo taagnida socodka iyo taagnida dee wuu soconaya weliba dhowr socod oo kale noocu soconaya socodka qaarkii waa waxay fusuushu ku samaysanto xagaa iyo jiilaal iyo gu iyo waxa kale socodka qaarkiina waa waxa habeeniya maalintu ku samaysanto yani inuu on its access inuu ku wareega waa waxa keena habeeniya maalintu yukawiru leyla cala annahaar baa ilaahay tilmaamaya takwiirka ma taqaana takwiir alcimaama waa sidaa sheekhu imika u duubay waa markaad cimaamada saa u duubto ilaahay wuxuu leeyahay habeenkii iyo maalinkan isku duuban subxaana waa isku duuban yihin waayo habeenku markuu sii baxaya maalintu soo gelaysa xagga kalena maalintii baa kasii baxayso habeenkaa soo gelaya waa takwiir takwiirkuna wuxuu ku yimaadaa bay leeyihin wareegga dhulka wareegaya calaa kulli xaal masaa'il aynu hadda wakti badan u hayno adiladeeda cilmiga ama nusuusta culamadu daliishato laakiin waxaan leenahay un culamada muslimiinta ee caamka ee masaa'ilka kan ka warrama qadiiman wa xadiidan labada masalabada way sugayaan wallahu aclam